Nabad iyo nabadgelyo korkiina ha ahaato. Kusoo dhawaada barnaamijkeena maantay. Waa anigoo ah Sultaan. Barnaamijkan maantay ayaa ah qaybtii ugu horeysay aan kusoo qaadan doono arrimaha qoyska. Inkastoo bad qaba ruux soo bukan maayo, qalbigii budweyn lala dhacaa soo burburi maayo. Aasaaska qoyska waa jacayl. Haddii uusan jirin jacayl, nolol ma jirto. Familkii jacayl laga dhaxwaaya, nolol dhexdooda ma taalo. Labada isqabta iyo caruurtooda markasta waxaa qurxiyo noloshooda, markasta waxaa noloshooda wanaajiya waa jacaylka. Famil qurux badan haddii community laga dhex helana, wadanka iyo bulshada ayay u roon tahay. Waayo bulshada iyo community-ga iyo wadanka waxaas qurxiyo, wax u qabta waa qoyska. Wax walbana waxay kasoo bilaabmaan nolosha qoyska. Kii raba inuu biri wax noqdo madaxweyne, kii raba inuu noqdo dhakhtar. Cuniga markuu soo weynaado mise gabadha ay soo weynaadaan, waxay ku hamiyaan qaarkood inay wax bartaan, inay jaamacado galaan, inay dalkooda iyo dadkooda wax u qabtaan. So sidee wax ugu qaban karaan? Waxay wax ugu qaban karaan waa qofku markuu qalbiyan oo u nool yahay, waa qofku markuu jacayl la nool yahay oo jacayl lagu soo koriyay ayuu familkiisa wax u qaban karaa. So jacaylka kama bilaabmo markaska, kama soo bilaabmo iskuulka, kama soo bilaabmo jacaylka kaniisada, kama soo bilaabmo. Wuxuu ka bilaabmaa jacaylka waalidka. Labada waalid ee isqaba markay tusaan caruurtooda, markay baraan caruurtooda jacaylka, markay ula dhaqmaan jacayl, si jacayl ah oo qalbiyan ah oo si jacayl ah markay u barbaariyaan caruurtooda. Midoo kale waxaa jirto caruurta markasta waxay sameeyaan record, ma lahan filter ee maskaxdooda wax ay ku kala saaraan. Markastana waa caruurta waxay rumeeyaan, waxay maqlaan iyo waxay arkaan. So marka labada waalid isqaba ee caruurta u joogta, haddii ficil wanaagsan oo qurux badan caruurtooda ay tusaan, waxay tusaale ay u tahay, waxay anfacayaan bulshada. Waayo waxay noqonayaan caruur caafimaad qabta. Caafimaadkooda inay wanaagsanaatana ma ahan kaliya caafimaadka jir ahaaneed ee physicalka. Caafimaadka waxay noqon kartaa qalbiyan iyo maskaxiyan inay caruurta u wanaagsan yihiin. So waxa ugu weyn aan rabo inaan uga hadlo mowduucan waxay tahay sidee waalidka labada isqaba sidee u dhaqmi karaan, haddana ay u dhaqi karaan caruurtooda iyagoo dhaqmadaas iyo noloshaas ay ku saleysan tahay jacayl. Qaybta koowaad waxay noqon doontaa xushmada. Xushmada waa shay muhiim u ah familka iyo qoyska, ayuu muhiim u tahay in laga dhex helo xushmad. Xushmadana waxay ka bilaabataa labada lamaane isqaba ama waalidka midka kale inuu xushmeeyo. Haddii aysan xushmad jirin, haddii aysan jirin kala dambeyn, waxba ma hagaagayo. Hooyada waa inay ninkeeda xushmeysaa, aabbaana waa inuu xaaskiisa u xushmeeyaa. Xushmada waxaa ka mid ah oo badanaa annaga aan u aragno inay tahay wax oo iska caadi ah, wax yar u aragno, sometimes aan sameyno, yaqaanaan xitaa dadka familaadka leh. Laga yaabaa markaas inay xaggooda normal ay ka tahay waalidka iyo ama lamaanaha inay kala careysan yihiin oo kale. Maadaama labadooda ay kala careysan yihiin, caruurta dhexdooda inay disrespect ku dhex sameeyaan oo midka kale uusan xushmeynin. Oo laga yaabaa sometimes in erey aan wanaagsaneyn ay isku dhahaan iyada aysan meesha oolin xushmad, caruurtina ay meesha joogaan ay maqlaan. Taasoo sababi karta korinshaha cuniga inuu ay xumaato, uusan baraninbo sida dadka loo xushmeeyo, maadaama uu arkay labadiis waalid oo midka kale uusan xushmeyneynin. Sometimes waxaa dhacda caruurta isla dhalata inaysan xushmeynin oo ay waalidka isweydiiyaan mise caruurta ay ku canaantaan, wariyaa walaalkaa xushmeey mise walaashaa xushmeey. Adiga marka koowaad mis xushmeyseen dhexdiina. Familka waa tiir ishaayo waaye. Waalidka markay wax fiican sameeyaan, filashada cunugana waxay noqonaysaa wax fiican. Waalidka markuu ficil xun oo ilmaha xaggooda dhexdooda ku sameeyo, filashada cunugana waxay noqonaysaa ficil xun.
walaalayaal mawduuca labaad ama qaybta labaad aan raba inaan ka hadlo waxay tahay dulqaadka. In maaragtay waalidka isku dulqaataan. Dulqaadkana waa shay aad iyo aad u muhiimsan oo maaragtay muhiim u ah nolosha qoyska labada isqabta. Dulqaadkana waxaa laga dhaxlaa adkeysi iyo karti. Caqabad waliba oo familka dhex imaada markii lamaanaha mise waalidiinta isku dulqaadanayaan, dulqaadasho meesha ee taalo waxaa imaanayso caqabadaas in la xaliyo. Caqabad lama xalin karo iyadoo aysan meesha oolin tolerance ama dulqaad ee meeshaasan oolin, caqabad lama xaliyo. Qaybta saddexaad walaalayaal waxay tahay jaceylka. Sidaa qaybta koowaad ma ugu soo aragnay markaa bilaabeynay mawduuca. Jaceylka waa aas-aaska nolosha. Jaceylka waa noloshuna waa jaceyl. Haddii bilaadanka dhexdiisa aysan oolin jaceyl, waxaa aad iyo aad u adag inay noolaadaan. Marka mawduuca qaybta saddexaad waxay tahay in familka labada isqaba ee jaceyl istusaan, isku muujiyaan inay isjecel yihiin, ficil ahaan xitaa ay u sameeyaan caruurta dhexdooda. Anaga ceeb baa u aragnaa hadaa Soomaali nahay, laakiin ceeb ma aha inaa xaaskaaga afka cuntada u gelisid, inaa xaaskaaga dhahdi waa ku jecelahay macaantu, waa inaa erey wanaagsan ku oratid xaaskaaga. Ceeb ma aha. Caruurtan markay arkaan xushmada iyo jaceylka xaaskaaga u haysid, iyagana beri waxaa fududaanaysa inay dhexdooda isjeclaadaan, nafahooda ay jeclaadaan, community-ga iyo bulshadana ay jeclaadaan. Hadduu ilaahay maaragtay gaarsiiye xaasas yeeshaan iyo family ay yeeshaan, inay xaasaskooda iyo familidooda ay si fiican ugula dhaqmaan. Waxaan rabaa aayad kitaabka quduuska ku qoran inaan kusoo gabagabeeyo. Aayaddaasaan rabaa inaan idinla qaybsado walaalayaal. Aayadan waxayna tusaysaa qiimaha iyo resultiga jaceylka uu leeyahay. Waa kitaabka Korintiyoska 1 aayadda 13 jabtarka 4. Jaceylku waa samir badan yahay, waana raxiim. Jaceylku nina ma xaasido, jaceylku ma faano mana kibro. Jaceylku waa samir badan yahay. Qaybtii labaada kusoo aragnay samirka. Markasta oo qalbigaada uu jaceyl ku jiro, waxaa waaye waa markasta oo aad samirtid oo familkaada iyo nolosha aad u samirtid xaaskaaga iyo caruurtaada. Waana raxiim, waa macnaha naxariisto waaye, oo naxariis waaye jaceylka. Jaceylka nina ma xaasido. Mar haddaa familkaaga iyo caruurtaada iyo xaaskaaga iyo ninkaada aad si qalbiin leh u jeceshahay, meesha waxaa ka baxayso xaasidnimada. Jaceylkana ma faano mana kibro, mana kibraayo oo macnaha markaa adiga soojkaaga iyo ninkaaga iyo caruurtaada aad jeceshahay, lagama yaabo inaa u fahantid oo ama ku kibirtid caruurtaada. Marka walaalayaal, aayadan waxaa ka baranaynaa jaceylka inuu yahay jaceylka mid samir badan oo mar waliba oo marba hadduu qalbigaada jaceyl ku jiro, qalbigaadan uusan ka marnayn samirka. Waana raxiim, waa naxariiste, waa mid naxariis badan jaceylka. Xaasidna malahan, faan iyo kibirna malahan. Marka walaalayaal, waxaa soo gaarnay gunaanadkii gabagabadii mawduuceena. Waxaa rabaa inaan idinkaga tago 3 shay halagu dadaalo haddii ilaahay oo idin siiye familo, oo ah midka koowaad jaceylka halagu dadaalo inaa kula dhaqantaan familkiina. Samirka halagu dadaalo inaa familka kula dhaqantaan. Dulqaadkana halagu dadaalo inaa familka kula dhaqantaan. Caruurtiinana intay yaryar yihiin u hiiliya, waayo caruurta wan wanaagsan ee caafimaadka ku kara. Caruurta waa labo, kuwana cuduro bay ku koraan, kuwana caafimaad bay ku koraan. Cuduro iyo caafimaad marka laga hadlayo ma ahan qaab physical ahaaneed, waa qaab mentality ahaaneed iyo identity ahaan. Macnaha qofka inuu shakhsiyad ahaantiisa cunuga u koro mid wanaagsan oo noqdo, miro fiican soo saara, waxay ka qayb qaadan kartaa inuu cunuga nolol fiican u helo. Waalidka ku xirantaa. Marka u hiiliya caruurtiina, ha u ogolaanina caruurtiina inay qaab xun u koraan. Idinkana farxad baa idinkugu jirto marka sameysaan jaceyl, dulqaadasho iyo sabir markaa ku dhaqantaan familkiina. Ilaahay idin barakeeyo, nabad ilaahayna ha idinla jirto.